ciidanka Puntland ayaa ku wajahan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Cayn isla markaana intooda badan ay yihiin deegaano ay horey gacanta ugu dhigeen ciidanka dowladda Puntland isla markaana si rasmi ah loo rabo inay ciidamada Puntland la wareegaan deegaanadaasi waxaa ka mid ah Ceegaag, Woodward, Farjano, Horfadhi sida dhammaan gobolka Cayn gacanta horey ugu dhigtay Puntland ayaa la filayaa in ajanduhu koobaad uu yahay in si rasmi ah gacanta loogu dhigo deegaano badan oo ka harsan gobolka isla markaana ciidanka dowladda Puntland ay haatan gacan ku haynteeda ay leeyihiin hore ayay ciidamada dowladda Puntland ay la wareegeen ahaanba gacan ku haynta degmada Poocame ee gobolka Sool xilli halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maleeshiyadka argagixisada maamulka SRM isla markaana gabi ahaanba ay iskaga baxeen maamulka SRM isla markaana ku biireen ciidamada dowladda Puntland xildhibaano wasiiro ka tirsan xukuumadda dowladda Puntland ayaa gaaray degmada Poocame ee gobolka Sool halkaas ay ku soo dhaweeyeen cutubyo fara badan ka tirsan maleeshiyadka SRM isla markaana si rasmi ah u sheegay inay ka mid noqon doonaan ciidamada difaaca Puntland isla markaana ay si rasmi ah ugu biiri doonaan ciidamada dowladda Puntland ciidamadaas ayaa ciidankan sida rasmiga ah u qarameysay dowladda Puntland ayaa waxay noqdeen ciidamada watay gaadiidka dagaalka gaashaman iyo sidoo kale qoryaha daradooriga u dhaca oo si rasmi ah ay la wareegeen ciidanka dowladda Puntland ku sugnaa degmada Poocame ee gobolka Sool gabiga aanba gacan ku haynta gobolka Sool oo muddooyinkii dambe maamulka SRM ay sheeganayeen ayaa haatan si rasmi ah ciidamada dowladda Puntland hore ugu sugnaa qaybtood ayaa hadda si rasmi ah iskugu bilaariyay qaybo ka mid ah degmada Poocame ee gobolka Sool si rasmi ah loo wareegay ciidamada faraku-tiris ah oo maleeshiyadka argagixisada maamulka SRM kaga sugnaa deegaano ka tirsan degmada Poocame ee gobolka Sool wasiiro iyo xildhibaanaha booqday halkaas si rasmi ah ugu soo dhaweeyay cutubadaasi ciidanka ay watay qoryaha daradooriga u dhacay sidoo kale baabuurta dagaalka ee gaashaman isla markaana si rasmi ah u sheegay inay ka mid noqonayaan ciidamada dowladda Puntland ee ku sugnaan doona degmada Poocame ee